السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي عشرة aqoonkaal.com waxaan ku baran doonaa casharkan waxa loo yaqaano wareega ku xeeran qoraalka ama derbiga ku wareegsan qoraalka. Tusaale ahaan shaashada kombiyuutarka marka eegtid qoraal baa meel ku qoran. Qoraalka waxa lagu wareejin karaa moogtahay wax la yiraahdo border. Border macnaheedu waxa la yiraahdo borderka waxaan uga jeednaa waxa loo yaqaano wareega ku xeeran qoraalka. Marka inaga soo aragnay paddingka iyo marginka wanaga soo aragnay marka maanta waxaan baranaynaa borderka oo ah wareega ku xeeran oo xadka u ah qoraalka waa fahamtaan filaya haddaba haddii aan qeexno border waa wareega ku xeeran qoraalka kaasoo laga qiyaas qaato inta qoraalka laga qori doono qayb ka mid ah shaashada website-ka waa wareega xadidaya inta qoraalku u jirsan doono dhinacyada shaashada kombiyuutarka ma fahamtay marka hadda marka eegto qoraalkii meeshaan intaan midabka gaarka leh way qoraalkii waxa ku xiga padding baa ku xiga oo ka soo durkaya waa inta laga soo durkayo wareega kadibna waxa weeyaan wareega waxa ka sareeya marginki ama cirifkii oo inta laga soo durkayo shaashada ah ma garatay marka aan eegno inta la soo baxno casharkeeni HTML-ka iyo CSS-ka si loo qoro xeerkaas waxaan xusnaa xeerkan la mid yahay labada xeer hore oo soo barnay isku qoraal ahaan marka hore qaabka kuwaad loo qoro la mid yahay laakiin waxa ku siyaada wax loo yaqaano dhumuc iyo nooc iyo midab baa ku siyaada arki doona hadhow marka hore xeerka qorno noo soo diyaar casharkeeni meeshii hore oo qaybtaan u bixinay xoolaha oo ahayd qaybtaan waxaan u sameynaynaa waxa loo yaqaano border ma garatay marka borderka maxaa niri wuxuu la mid yahay qoraalkii qaybihii hore oo kaleeto soo maaha waxaa la qorayaa marka border top oo dhinaca sare ah sanduuqa waa borderka tusaalahaan ka soo qaad inuu kaa wareegan yahay moogtahay marka maxaan qoraynaa top waa dhinaca sareto markaasaan ku xijinaynaa right oo midiga markaasaan ku xijinaynaa bottom oo hoosa markaasaan ugu dambaysanayna left oo bidaxa marka waxaan top isku cabir baan ka dhigaynaa markaan waxaan ka dhignaa top inuu yahay 2 pixel yahay right inuu yahay 2 pixel bottom inuu yahay 2 left inuu yahay 2 ma fahamtay laakiin saan soo barnay casharada hore ugu soo baranay waxaa loo qori karaa hal xeer baa la suugin karaa soo maa waxaa la dhihi karaa intaan ka masax marka hore qor waxaa qortaa border marka qoraysaa markaasaa qoraysaa intii ahaayeen xabo waxaa qoraysaa 2 pixel afartii dhinaca markaa qoraysaa soo maa marka intaan iska baabiin intaan afartaas waxaa la mida moogtahay leenkaas lamida sare soo baabiin afarta tiro markay isku mid yihiin maxaa nidhi hal tiro laga soo qaadan karaa soo maa soo ma xusitay taasna marka afartii leen oo isku xiga ama sadar ahaa aan soo dhaafnay waxaan ku qoraynaa waxa ku bedelaynaa halkaas sadar afarta sadar markay bacdama isku cabir ahayn waxaan ka soo qaadanaa hal xabo aan ka soo qaadanaa marka save garee casharkaaga yamow refresh deh hadda border inoo muuqan mayso maa kanaan u samayna border ma muuqanayo sababta maxaa weeye sababtu waxa weeye marka laga hadlayo wareegga ama borderka si loo agaasimo waxaa la adeegsadaa wax loo yaqaano dhumuc ama width nooc oo la yiraahdo style iyo color oo midab ah baa la adeegsadaa marka tusaale ahaan aan eegno dhumucda waxaa laga dhigi karaa 1 pixel ama 2 pixel ama 2 qoro ama 2 em marka muhiimadu waxa weeye inaad garato hal pixel wareeg marka u samayso qoraal baa wareeg u samaysa soo ma wareeg marka wuxuu noqon karaa hal pixel halkii pixel marka wuxuu la mid yahay line-kaas oo kale tuu noqonaya hal pixel marka laga dhigo laba marka laga dhigo intaas saas u ekaan dhumucaas yeelanaya saddexda dhumucaas yeelanaya afarta ilaa iyo ka gaadho 9 waxaa la dhihi karaa kaleeto thin ama medium ama thickna waa la dhihi karaa laakiin badanaa nambaradaas la adeegsadaa inta ku habboon sida ku habboon lagamana badiyo nambar macnaha weyn lama isticmaalo inta badan waxaa la isticmaalaa 3 2 1 oo kaleeto marka loo sameynayo wareeg qoraal loo sameynayo waxaa la adeegsadaa dhumuc yar baa la adeegsadaa ma fahanti marka dhumucaas hadda waxaa laga dhigi karaa macnaha widthkeeda waxay noqonaysaa ama dhumucdeedu waxay noqonaysaa hal pixel ama 2 pixel marka bacdama afarta dhinac isku mid yihiin waxa laga soo qaadanaya hal xabo soo aragnay ma garatay waxa kaloo loo sameyn karaa wax loo yaqaano midab baa loo sameyn karaa midabka marka wax la dooranaya midabkii la doono sida cadaanka ama waxa weeyaan cadaana ama casaanka reer waa loo qori karaa ama cabirkii baa la qori karaa inta la qoro calaamadeeni iyo midabkii marka casaanka oo 6 xabo ah ma fahamtay waxa kaloo loo sameyn karaa wax loo yaqaano styleka marka maxaa weeye styleka waa nooca ma garatay marka waa border style mar walba waxa la raacanaya border style oo kaleeto la raacanaya mogtahay nooca wuxuu noqonayaa marka solid oo kan wareegsan soo ma jeedo
marka la yiraahdo border width oo lagu hor qoro solid macnaheedu maxay tahay waa mid wareegsan oo dhumucdiisu wareegsan tahay oo isku macnaha xajmi leh dotted marka la yiraahdo waa mid dhibco leh dash waa sidoo kaleeto double oo marka mid laba ah kaleeto groove waa noocan region waa noocan ma fahanti marka hadda aan eegno si loo qoro waxa la qorayaa tusaale ahaan wixii loo sameeyay border kala sameeyay la qorayaa waxa la marka border width cabirkeedii oo afartii dhinacba ah ma fahanti marka sar wuxuu xijinaya border style waxa uu xijinaya marka dotted ama xawiyaan ama solid ama xirabta haatee marka sar wuxuu xijinaya colorka ma garatay marka notiga 10 keeni aan inta qorno hadda waxaan noqonay marka maxaan qornay waxaan yiri border width oo mesh border ka caadiga wax ku bedelo width style iyo color marka width wuxuu noqonayaa dhumucdii style wuxuu noqonayaa noocii hadda waxaan ka dhignay dhibciyo mid ah ma garatay marka waxaan noqonaysaa macna saac amal kale taa ma garatay iyo midab baan sameeynay ma fahanti anagna marka qoraalkeena markaan tagno sida page ku soo baxayo refresh dheh eeg marka wuxuu noqday midab bluega oo dhibco leh muuqda ma jida si aad u aragtid dhumucda waxaan ka dhignay 20 mana saa u aragtid way ma inta badan lagama dhigo laakiin waa weynaysiina saa u aragtid qoraalka soo noqonayo dhumucdiisu refresh dheh eeg dhibco way noqotay soo martid aan yareyno oo ka dhigno marka 5 ka dhigno midabkan aan ka dhigno midab kale ka dhigno ff dambabi kana wax ka dhigtaa solid ka dhig oo dhumucdiisu miday dhammaystiran tahay ka dhig refresh dheh eeg wuxuu noqon marka midab casaana maxaa ku wareegsan wuxuu ku wareegsan midab casaan oo solid ah soo maaha noocyadii kale maxaa ka mid ahaa anagna ku bedelno ama midabkan ka bedel haddaan ka dhigno green oo kaleeto midab kale ka dhigno waxaa ka dhigtaa midabka dhexda geliya fafta midabkan waxaa ka dhigtaa waxaa ka noocan waxaa ka dhigtaa dash safe maarata green buu noqday midab hadda si fiican looga jeedo si midabka ka dhignay casaankiisa u daynay casaankiisa u daa refresh ama buluug baan ka wadaa marka midabkii buluugga ahaa oo dash wey soo maartid marka intii noocaad rabtid baa ka dhigi kartaa nooca rabtid noocyada marka maxaa noqon karaa styleka waxaa noqon karaa solid dotted oo dhibco ah dashed oo saan camal ah mid laba line oo isku kor orana mid sidaan usoo kor usoo taagan wax yar iyo noocaan ka mid ah marka waxaa jira xeerkaas marka si ka sahlan baa loo qori karaa waxaa la hormarin karaa saddex u kala sarreeyaan waxaa la qorayaa border widthka laga baabiinayaa markaas waxaa la qorayaa cabirkii waxaa lagu xijinayaa styleka noocu yahay markaas lagu xijinayaa midabkii ma fahanti saan sheegayna waxa weeye waxaa qoraysaa border laba dhibcood widthkii wixii dhow iska daynaysaa styleka waxma qoraysid laba dhibcood waxaa qoraysaa markaas cabirkii oo ahaa 5 pixel tusaale ahaan markaas waxaa ku xijinaysaa noocu ahaa oo kaleeto tusaale ahaan solid ama dashka u daawa dash markaas ku xijinaysaa midabkii marka saddexan waxaa kaga kaaftoomaya u fiirso marka styleka waxa ugu horeeya macnaha waxa ugu horeeya widthka waa ugu horeeya sama widthka ugu horeeya oo loo qoraya cabirkiisii kana styleka xol raacin maayo macnaha borderkii la raacin maayo style iyo color min raacin waxa leeyahay border bes laba dhinac soo saaran cabirkii noocii iyo midabkii intaas ka tir saan farqa u aragno marka aan eegno save gray refresh ده حاس كبدل معي واي صدق اللين وحلا اللين كي هذا صار لا ميدا سما هذو كقرايه نوعي وسميناين صدق افرتها نوع مشنتها نوع كو لو صدق فرشنتها نوع وسمينيسا اما لحدا نوع ما قراتي هنكون نقولنا مركا لسانو هبينو ماشي waxa ka dhigtaa tusaale ahaan labo kana waxa ka dhigtaa solid midabkana waxa u deysaa midabkiisa u daa bluega safe refresh هاك marka waxa ku wareegsamay line khafiifa oo bluega ku wareegsamay qoraalkii samaartid hadda ayuu macna ku sameeyay marka 13 la soo dhaafay marka la isku geeyo meeshan maxay tahay intuu u ka durugsan yahay darbiga maxay tahay waa margin somaha intuu qoraalku soo durugsan yahay xariiqdan bluega muxuu yahay
وبادنج كي لاين كورك سنة محوي border سدح 10 مركز ساسي معنا وسمعيا مركز اللي سوق كانوا ما قرأتي لو بدأ 10 وراح نكسر برنامج مارجن بوها منه وحوها بادن بوها كان هذا حوي border كيوي ما قرأتي وحنا كسر كوبين سدح قيود بس ملك كسر كوبين هنا وكوانا ما قرأتي mid waxa weeyaan waa margin oo kan kore ahaa paddingkina waxa weeyaan waa kan borderkina waa kaas ma garatay marka ka waran haddii loo baahdo in hoos kaliya loo sameeyo oo laga dhigo macnaha in loo sameeyo kaliya haddii la rabo dhinacan kaliya hoose loo sameeyo borderka oo dhinacyada kale laga daayo waxaa la samaynayaa meeshaan la imaanayaa waxaa lagu darayaa meeshaan un bottom hoos dhinaca la rabo kaliya in loo sameeyo hadda dhinaca kaliya hoosta kaliya marka waxay samaysanaysaa midabkaas ma garatay refresh ده eeg marka dhinaca hoosta kaliya ka samaysay wuxuu ka yeeshay marka border dhinacyada kale kama leh haddii kor la rabo in loo sameeyo kaliya maxaa la dhahayaa top halkaas lagu qorayaa top marka kor kaliya ku yeelanayaa border refresh ده وكاس كور كل يوكيش مركب ميدو كيلو دون والله سمين كرا مركب ميدو كنا يو نوعنا نالكاس على جبد ليه كل حلقة دي كرا مركب دوتة أدير بطول حلقة دي كرا دل روداش ميدو كنا على جبد الكرا المهم وحوي أنا فهمتي حرك بوردر كسوق رمو ما قرأت بوردر بالقرية وحلو حجنا يا عبر كيسي وودسكاه أو ترضاه وحلو حجنا يا نوع أو نقنا يو أو نقنا سوليد أما حنقنا كرا داش أما وحي أما لحنا النوع متكون نقنا markaas loo xidinayaa midabkii oo casaan blue green waxa rabtaa noqoto cagaar ah ama midabkii la doono laga dhigi karaa waa fahamtaan filaya marka muhiimad waxa ah inaad kala fahamtid waxa muhiim ahaa marginka borderka iyo paddingka ma garatay casharkii hore waxa weeyaan waxaan ku daray qayb aan u bixiyay erbixinta loo baahan yahay ilaa hadda waxa weeyaan kelmad sax ah oo af Soomaali u dhiganta padding waxa weeyaan ma hayo wali kelmadda padding margin waxa la dhigi karaa cirif borderkan waxa la dhigi karaa waa xad ku wareegsan ama wareeg ku wareegsan laakiin paddingkaas waxa weeyaan waxa la rabaa macnaha intuu ka durugsan yahay kelmadda af Soomaali u dhiganta ardada laga soo inay keenaan ma garatay ama qofkii garanaya macnaha inuu kelmad ka habboon si aan u isticmaalno casharada dambe ugu isticmaalno baan ka filayaa inay hoos ku qortaan dhinaca hoose ee qaybaha jawaabaha ku qortaan insha allah casharka halkaas ayaan ku joojinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wabilaahi towfiiq